maantuna waxaynu baran doonaa tobanka fasalo u gooni ah groupkan antibiotic maadaama in badan aan soo sheegay in groupkan antibiotic uu leeyahay 10 fasalo kala duwan. tobankaasi fasalo hadad lacala fahanto waxa huba noqon karto in daawo kasta oo qalajiye ah ay ka soo farcmato fasal kasta u gooni ah. maadaama daawo kasta oo qalajiye ah ay ka soo jeedo groupkan antibioticna uu leeyahay 10 fasalo kala duwan. tobankaasi fasalo ay hadhowdi daawooyinka idil mid u hoos gali doonaan. intaas oo idil hadad fahanto waxa suurtagal noqon doonto in daawo kasta oo qalajiye ah aanan marna ku wareeri doonin. waxaad ogaataa daawo kasta oo la isticmaalo in ay leedahay group, balse daawooyinka idil markii si loo fiiriyo group kasta maadaama ay ka soo jeedo group qaar baa jira aysan lahayn doonin wax fasalo ah. group qaarna waxa jira ay lahayn doonaan fasalo sida groupkan antibiotic iyo groupkan loo yaqaano antihypertensive drugs. iyo group kala ajira aad u tiro badan waliba lahayn doonaan fasalo aad u tiro badan. marka groupkan antibiotic iyo groupada kale markii la isbarbar dhigo waxa inta badan aad u dhib badan barashal ahaan groupkan antibiotic. waayo inta badan dadku in badan isticmaala daawooyinkan qalajiyaasha way iska isticmaalaan mooyee ma ogaan karayaan in daawadan qalajiye ah aysan adiga marna ku habooni karin xanuunka qofkan ka cawanayo. marka waxaad ogaataa daawo kasta oo qalajiye ah markaad isticmaalayso inaad marka hore ogaato in ay ku haboon tahay meesha aad u isticmaalayso iyo in kale sifaha dhowdi daawooyinkan aysan marna jirkaagu la qabsanin. maadaama in badan aan soo sheegnay in daawo kasta oo qalajiye ah oo si qaldan loo isticmaasho in ay keeni karto la qabsasho ay la qabsani doonto difaac jirkaagu. hadhowdina daawo kasta oo qalajiye markaad xanuun isticmaalayso inaysan marna waxba ka tari doonin.